السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال دمان وإن سلامي وحيدنكو سلام سلامة إسلام كأه دمانتين آذان أمهات سنتهين الله سبحانه وتعالى إمهات أسمناتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa ila joogo maantay wiilkayga wax yar rabo inuu soo horgalo hadii aa aragteen haday inaan wax yar soo hormariyay oo hordhaca idin dhahay casharka maantay wax yar introduction goal setting wax yar raba inuu ka taabto adinkoo raali ah hadii aa u ogolaataan luqadu ku hadli doonana waa English waxa laga yaabaa in waalidiinta ku ah dadka ku jiro waxa laga yaabaa in dhalinyaro idin ku jirto oo luqada taqaano English sa u ogtiin waa international waan ogahay in dadkeena badan ay qurbaha joogan dadka Soomaaliya joogan ay yaqaanaan ee bartaan iskuulada u tagaan ilmahana maanta laga wada baro marka waxaan jeclaystay in asaga soo casumo oo wax yar uu ka hadlo sida waalidiin badan ay iga codsadeen marka hadii insha Allah uu ogashihiin ii soo qorayaas wax yar intuu yaacni waqtiga iskuulka uusan bixin adinkoo mahadsan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada laakiin casharkeeni sida ballanta ahayd waniisi socon doonta ana sii wadi doono laakiin wax yar uu raba inuu dhaho uu magaciisana uu sheego waana 13 jir ayuba la dhahaa anaana dhalay wiilkaygi waaye waana mahadsantihiin ayub Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I know all the Habiers, Abtis and Adars are all watching. So I just want to pay my respects. But today I just want to be focusing on your children. I just want to be telling them quick things on how I was before I went to FSA and how I am after. I just want to quickly talk about goal setting. So first of all, before I went to FSA... what is the FSA? Because most of them, they don't know. Just say that. FSA it stands for Fearless Speaking Academy. And what you do, you go there, and then after they boost your confidence. And then after you do little programs, there's 21-day program. I think my mom was doing it with you guys. And there's other programs that really help boost your confidence. So I just want to be talking about... how I was before goal settings. So how I was before is when I went, I used to never be with the public. I used to be always behind and never really talk, or be on my phone playing games or anything. I would never I would be socially awkward, never really talk to people that much. But when I went to FSA, I was scared. My legs were shaking the first time I went. I didn't really know what all the people would be like, and when I went in there I started acting like a completely different person. Only when it was up to the middle, let's say halfway through the program, I started opening up, and everyone were helping a lot, and yeah, it opened me up a lot. So I just want to be talking about goal settings and how your children could really grab that on, because then the children these days, goal settings are really hard for them to grasp. The reason why is because they expect the parents to do everything for them. But you just have to tell them, get the littlest things, not the big things. Yes, if they're older, maybe give them the bigger responsibility, but start giving them a little responsibility when they're younger, just for them, to have a little taste of goal settings. So when they start, let's say your child kept on going to the fridge every day, 13, 14, and they kept on always saying, oh, why is the food always here? Oh, Hoya Abba never a deg and stuff like that. You tell them to go to Tukanka, give them la'ag, tell them to save up and get what they want. That's the first step to goal settings. Making them to save up for something what they want. You mean responsibility? Yeah, responsibility. So just give them 1p, 2p coins, and maybe they can save up, yeah. And another one is always be prepared. For me, I used to... procrastination, I hated that. But I used to be a victim to it. I would never do my homework in time. I'd always do my homework late and do it exactly on the last minute. Yeah, I would do a period before the class was in. So I just want to tell about you guys that, tell them that you have to prepare them when they're at a younger age, because children, they soak up information like a sponge when they're younger. So I just want to tell you guys to tell them to soak it up, and then after
tell them that procrastination is bad. Tell them to do stuff before they do it. And take responsibility. Yeah, and take responsibility. So I just also want to say, imagine your child was running to a bus, or if you are running to a bus, you went on the bus but you had no ticket. You're not being prepared. That's another step. Preparation. You always have to be prepared before. You can prepare for anything. You can prepare if someone's coming for dinner. You can prepare if you're having a child. You can prepare for anything. You should prepare every day, even if it's something big event. Like my mom, she's preparing for you guys her speeches. So I just want to leave it there, and I want my mom to come. Thank you all you guys for watching me, and Edo, Habia are there. My mom is here, and she's going to talk about you with the ashar on what she wanted you guys to know. Thank you, Ayub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ba u mahadsantihiin inta dhageysatay oo walaalaha dhammaan waana ka xumahay luuqada inuu ku hadlo dhibkaasna waxa keena wadamada aan joogno ilmaheena si kasta hadaa ula dadaalno waxa fiican runta daacadda inaan isu sheegno oo ka wada hadalno kama dhigi karno sida anaga aan ku soo kornay sida luuqada anaga aan maaragtay sida tooska uga hadalna kama dhigi karto waa dadaalna waalid ahaan waxa isku daynaa in maaragtay ilmaheena ee luuqadeena kaliya ay ku hadlaan dhibkaasna yani wax weyn anigana qalad maarkina waalid ahaan waana saaran yahay qaladna kalena waxa waa yani meeshan ku noolnahay taas noo keenayso وانا كحما يعني إن سم أدينك قاركين أفهم ويسان أما أو أركتان يعني إن لقد كهاد لواي ويقول هذا لجروج مركو جوجو هذا الله ذو كده لكن مركي نقطة إنه وح كف السيرة أما وح كهاد له حوجها وح شوذ اللي بيكون نقطتين مركي أنك قد بوام هتسنتهين يعني goal setting introduction كاسير يسميه لكن وح كدم بي ويجانو لأن أنا سيود الدونو سيدا أخرى إذا كقبل القاضي ومهسنتهين دمان أد بومهسنتهين waxaa shalay la iga soo codsaday inaan ka hadli doono waxa la dhaho self acceptance waxa waaye inuu fasirayo af Soomaali ku fasirayo in aad wax walba oo kugu dhaco adduunka wixii xun wixii fiicnaa aqaadatid oo nafsadaada aad u dilin nafsadaada aadan maaragta xanaaq ugu qaadin in wax walba oo yani aa ogaatid in hadii yani nafsadaada aadan gelinin iyo self realization waxay tahay in dadka aadan ka sugin in ay yani ku dhahaan waa fiican tahay ama waa xun tahay sababtoo ah waxyaalo waxa jiro ibn aadan aan nahay qaladaan naga dhaco waxa laga yaabaa nafsadaada inaad wax saxdid waxna haleysid laakiin hadii dib aad ugu noqotid aad isu garaacid nafsadaada aad tiraadid marka dambe aad tusaale u soo qaadatid hadii aad yani ama qof hor joogtid aad istiraahdid qof kasto iyo hor joogo aniga xun waxaan tusinaa inaan fiicanahay oo aad ka raasisid dadkii kale inay ku arkaan inaa fiican tahay oo nafsadaadana aad dishid taasna xaq kuma ahan yani adigina waxay ku dhimaysaa waxay hoos u dhigaysaa self esteem kaaga waxay hoos u dhigaysaa confidence kaaga marka waxa laga rabaa in self acceptance waxaan ka hadli doonaa yani waxyaalahooda iyo qaabka dadka ay isu waxeeyaan waxa laga yaabaa in amaantay ama maaragtay the reason ka usoo qaatana waxay tahay waxa ku jirnay agagaarka nafsadeena ma aragtay in negative ka laga soo bixiyo nafsadii aniga ku aan xoog saaraya si yani hadhowdi aadan u dareemin marka goolka iyo waxa dhan aad sameeysanaysid process ka mid ah waana ogahay wax walbana ma aragtay ma casharada dhan ma soo wada qaadi karo self acceptance waa adii nafsadaada inaad kaga raalino inaad qaadatid wax walba oo aad dhaco iyo in aadan dadka say ku arkaan waxa laga yaabaa in aad qof banaan isla aadeen ama qof guriga aad la nooshahay qaladaad uu ka dhacay qaladkii markuu ka dhacay adigana isku dayaysid maalin kasta inaad qaladkii saxdid waxa u saxaysaa qofkaas dartiis وما سحيسد يعني نفس الدادي مركا أو سحيسنا مركز توحى نيد قشنيسا هدي ما أنت قلد عن سمايو هبل أم هبلو ما رح تقصي قلد إيه فهم دونتا هدي ما أنت عن وحصحو هبلو أم هبل وإجعلان دونا تاس نويت أعضائنا كحشونا ما أحن بدن كانوا واسمينا أنينا واسمي أدين كنا واسميسن وحكم التهاي ابن آذن مضى لكن وحفي عن منوتها ومية وحسنا وفعنا نفس الدادية ما رحت هوس ودكتي مركي قفك كلا عرفتن ماشي اللي جربي قف كستو ابن آذن وحوليه هاي فكرة وحلاقيها وحد إنا أنت إذا لسه استاجي إدتك إيش جعلان دت قارئة إن كستو الحمد لله أنا أركن ما رحت أنا يجور كان لكن ودي كرتا وحلايا وما أهن هدو قف وكو إماذ وكله إن سيدا وح أو آخر سيد أما سيدا واحد الشيء أما سيدا ما ركت وح أسمي سيد وقلدنت هاي مركو حلقة ربع دين إنه وقاعدة تتقف كان السجل فكرة دي ستاي
haddii maanta aan wax saxaayana waxaan wax u saxaaya aniga wax igu quseeyay oo aniga nafsadeeda kasoo go'ay taas haddaa aamintid waxaa kaa yaraanaya in self esteemkaaga oo hoos u dhaco waxaa bilaabaysaa inaad nafsadaada kor u qaadid oo weliba aa ogaatid in maaragta qaladka ama evaluation waxa la dhexa jiro adi nafsadaada ku samaysid taasna waxaa ku samayn kartaa qof ku jecel qof maaragta oo aad iyo aad kuu jecel oo aad ku xiriir fiican aa la leedihiin haddii aad rabtid wixii qalad ama wixii kaa dhacay ama qaladaadkaaga suu-uyin sababtoo ah anaga ibni aadanana isma ogin marmar waa aragta macallimiinta iskuulka waa weydiin kartaa hadduu macallin fiican yahay haddii maaragta qof saaxiib wanaagsan aa leedahay waxaad dhihi kartaa aniga saana wax u sameeya ma ii sheegi kartaa wax evaluation igu sameeya waxyaalaha igu qaldan marka adigana marka evaluationkaas inaad u qaadatid waaye wax adiga isku saxiisid ma ahan qofka waxaa maaragta aa ku raali gelinaysa inuu kuu saxo marka haddii wax aa rabtid in yacni qaladaadkaaga aa samaysid qofkaas aa u sheeganaysaa kabacdi wixii ay ku siiyaan oo feedbackgaasna uu yahay kana ku qaldan tahay inaad saxdid waa kana ku qaldan tahay aa u qaadatid according adiga wax kugu saabsan aysan ahayn qofkaas waxaana u badanaa dadkeena badankeena in wax walbo aan qabsan lahayn ama wax walbo aan qabano dada waxa laga yaabaa inay karti fiican leeyihiin wax walba laakiin ay u qabanayaan qofkii kale inay ku raali geliyaan qofkaas ay dhihi doono wax saas darteed u sameeyaan marka taas waa wax maaragtay nafsadaada hoos u dhigi karto waa wax weliba dadnimadaada hoos u dhigi karto oo hor kuu qaadeynin wax walbana waxay leeyihiin in aa u samaysid qaladaadna hadday kaa dhaceen allah subxaana watacaala wuxuu dhaca fallahu camaa salaf wixii maaragta dhacay ilaahay wuu dambi dhaafaa marka iska badaaba in ibni aadan kale maaragta aa ku raaligelisid kow waa inaa xasuusatid allah subxaana watacaala wuxuu dhaha ibni aadanka maaragta way qaldamaan rasuulka sal allahu calayhi wasalam xadiiskiisa waatuu ahaa in ibni aadanka uu qalad ka dhici karo marka waxaan rabaa walaalayaal dadka qaladaadka markasta isku garaaco ama dhaho sababta waxaa dhici karta qalad marriage inuu kaasoo dhacay oo marriagekaaga hore uu xumaaday waxaa laga yaabaa qalad walaal ah ka gashay qalad waxaa dhici karta inaad dad ka gashay tiro badan qaladkaasoo dhan waxaa u aragtaa haddii maanta aad toobad keentay oo haddii maanta aad dib usoo laabatay inaadan dib ugu laaban oo nafsadaada aadan ku garaacin in aad tiraahdid qaladkan waa iga dhacay nafsadeyda maanta qofkan shalay ahaa ma ihi waxaan rabaa inaa hore u socdo taas waxay marka ku tusinaysaa hore u socon kartaa laakiin haddaa markasta dib isu dhigtid oo gadaal isu dhigtid aad soo xasuusatid wixii qaladkii aa gashay iyo wixii oo dhan waxaa kugu dhalanaya wax la dhaho inaadan hor gaaraynin markastana xanuun ah hal meel fadhinaysid taasna allah raalli kama aha sababtoo allah wuxuu ku dhahay waan ku jeclahay dambiilo kasta oo aad tahay haddii afkaaga aa maaragtay astaqfirullahda aa badisid oo aniga ii toobad keentid waa ku cafinaya cafiska allahna subxaana watacaala wuu furan yahay ilaa nafsada ee halkaas kuu timaado oo yacni aadan dhimashada sariirta aa saaran tahay marka self acceptanceaas walaalayaal waxaa idinku waaninaya nafsadiina ha u garaacina hore u socda aamin in maaragta nafsadaada dadka kale ha ka qaadanin waxay ku dhahaan haddii maanta xataa qoraalkaaga uu xun yahay haddii wax walba aad samaynaysid qof dartiisa ha ugu sameynin qofka ku dhahaya saasna ogow inuu qofkaas niyadda kaa jibinayo sababtoo niyadda waxa ugu daran waa niyadda qalbiga waxaa waxa meesha muraayadda dhan waay muraayadan waxay ku jabtaa in maanta dhan aa u ogolaatid qof kale inuu wax kuu sheego uu ku dhaho waa qaldan tahay oo hadhowdin adigana according qofkaas dartiisa aa u saxdid wixii marka waa ila fahamteena oo maleena yes forgive yourself nafsadaada waxay kugu leedahay xaq waan kasoo hadlay self worth acceptanceaas waxaa dib ugu laabtay maraan waxaan ka hadlaya in nafsadaada aad jeclaatid nafsadaada ma jeclaan kartid haddii nafsadaada aad ku xirtid dadka inaad ku raaligelisid inaad dadka ku raaligelisid qaabkaa cuntada u karisid qaabtaa u samaysid sababta waxaa dhici karto wax walba intention ay leeyihiin intentionkii adigana marka nafsadaada u garaacdo waxayna ka imaataa markuu qalad kaa dhaco anagoo dhan uu naga dhaca qalad markuu kaa dhaco waxaa isku dayaysaa inaad saxdid waxaa laga yaabaa qofka guriga kula nool inuu ku dhaho cuntada saa u karisid ma fiicna ama saa wax u samaysid ma fiicna niyadda marka feedback ahaan umaadan qaadan niyadda waxaa u gashatay mar kastaba nafsadaada inaad la hadashid maanta waa inaa cuntadan sameeyo because hebel haddii kale ima jeclaan doono ama heblo cuntada ma jeclaan doonto the truth aniga waxaan rabaa inaan wax walba runta daacadeeda ka hadlo micnaha self acceptance taasaa ka mid ah laakiin haddaad tiraahdid hebel ama heblo cuntadan kariya wax ka sheegtay okay according ayada opinionkeedu waa see wax u aragto laakiin anisaan wax u arka way duwan tahay taas maxaa samaysa nafsadaada respect siisay nafsadaada waxaa siisa xaqeedii oo aad tiraahday okay
qofkan asaga tiisa qusaysa aniga tayda waay haddaan wax saxaayo okay qaladan sameeyso ama cuntadii ama wixii halay waa meesha ugu yaraan ka soo qaadaya sax qaladki laakiin aan ku saxaysid wax adiga nafsadaada ka imaaday hadhihin qofkaasan ku raali gelinaya hadaa saas aad tiraado qofka ku raali gelisidna oo stepka koowaad aad samaysid 2 3 marka dambe noloshaada dhan waxa ku jiraysa qof ibn aadan ah oo adiga kala ah in maalin kasto aad maaragtay qaladku asaga soo ka rabay dadkana qaar waxa jiro ka arki karo ka dareemi karo waxay ku dareemi karaan markasto ayaga u soo dhawaatid inaad wax saxaysid sababta ibn aadan waa qofkan ibn aadan waa aragtay way jecelin inay qofka boss u noqdaan ama ay qofka controlaan hadaa runta ka hadlo marka adigina hadii sidii aad tustay maalin kasta waxa ku jiraysa sidii ilmo yar oo kale ama in lagu dhahosan ilmaha yarka xataa xaq ma laha in saas loo galo laakiin waxa u badan dadkeena waaweyn xataa dadka sameynayna advice aan siin lahaa waliga allah iska ilaali in qof aad ku noqotid critical ama judgmental ama qof aad ku noqotid in adiga dartaa wax walba u sameeyo adiga dartaa in wax walba u saxo sababtoo ah adigana qaladka waxa ku leedahay wax weyn ku leedahay waxa laga rabaa qofka walaalka ina wanaagiisa aragtid ma ahan ina mar kasto opinionkaaga aad fikradaada soo saartid sida adiga wax u rabto ina uu qofkaas uu arko ama uu wax u sameeyo ka filatid qofkiina uu maalin kasta sidoo ku jiro oo adiga dartaada u sameeyay laakiin kuma sheego niyada calooshu ku haysta wax walba u sameeyay wuxuu u sameeyay adiga inuu kugu raali geliyo adigana yaa tahay markii sheeg Allah subhanahu wa ta'ala uu qofka la raali geliyo asaga Allah subhanahu wa ta'ala wax walba ficil aad sameynaysid in asaga loo sameeyo marka dadkan waxa dhihilaa dadka saas u jaaj gareeyo Allah subhanahu wa ta'ala u laabo adigana ha ka qaadanin qof ibn aadana anagoo dhan si kala wax u aragnaa waxay dhahaan perception kulliyan perception kaas wax saa ani u arko adigana uma aragtid waxa laga yaabaa in qofka kale uu arko in ama wax saa u sii jeedo adigana dhanka kale u aragtid it doesn't mean ina ibn aadan isla ahayn laakiin aragtideena yaa kala duwan aragtida indhaha ma aan aragtida waxaan sheegaa fikrad ahaan soo marka waxa laga rabaa hadaa is aaminsiisid qofkan fikradiisa iga bedelan kuma xanuujinayso wax kasta oo qofku dhaho sababta adduunka kama la'aanaysid dad maantana waxa arag waxa u badan dadka inay iska judge gareeyaan qof kale oo ay dhahaan hebel ma aragta saas u socda hebel saanu yahay heblo waxba ka qaldan heblo wax sax ma ogtahay carabka ka soo bixinaysa asaas ku dhigaysid qof walaala ina niyadiisa jibinaysid oo niyadiisa ay muraayad amal u jabayso qofkaasna low self esteem ku dhaco markii damban uu dependent noqdo adiga markasta uu sugo markasta wax sameeyna uu qof weydiyo ma qaldana maanta see dharka u xirtay maanta wajiga suu yahay maanta see wixii yahay oo adiga uu ka qaato markuu qolka galan oo caloosh iska cuno oo caloosh ka ooyo waxaasna waa qalad marka waxa laga rabaa adigaagan hadda aan kula hadlaayo hadii ay ku gaarsiisay effectigaas oo ah in wax walba u sameynaysid adigoona is ogeyn oo yaani qofka waxana waxay ka bilaabataa 1 erey lagugu dhahay ama 2 erey lagugu dhahay ama qofka ama banaanka ama qof kasta ha ahaado gudaha gashatay oo mar kasta aad filanaysid aad dhehaysid qofkan ku sax dartiisa waxa ogaataa in gudahaaga iska dilayso gudaha marka iska dishina caafimaadka ugu horeey waa gudahan waxa waa ugu soo sheekeeyay waxyaalaha naga dhigay ibn aadan waa waxyaalaha ma aragtay dadnimadeena kor u soo saaro waa dadnimadaada hoos u dhacayso fikirkaaga aqligaaga hoos u dhacay sababta waxa ku soconaysa qofkaas waxaan ogaataa ibn aadanna lama raali gelin karo wax kasta hatta isku daydid qofkaas soo wax u raba inaad u sameeysid never inuu satisfy noqdo kugu noqdo waxa satisfy kugu noqona Allah subhanahu wa ta'ala wax walba marka Allah dartiis u sameeysid qalad kasto aad sameeysid in Allah dartiis u saxdid wax walba nafsadaada aad rabtidna marka aad feedback aad rabtid oo kale qof u tag qof adiga ka raali ah qof aad fahmi kartid inuu ku judge gareynaynin oo qof walaal ah aad tiraadid saana wax u sameeyay ama buugaana akhriyo saana wax u akhriyo ama saana wax u sameeyay maxaa iga dhihi lahayd qofkina uu ku sheegay wixii saxsanaa adigana markaas aa wixii ka qaadatid marka walaalayaal mar raba inaad ku dheeraado aad u mahadsantihiin maanta waxay casharkeena self acceptance ku saabsanaa bari waxaan ka hadli doonaa xanaaqa anga dhibka uu leeyahay aniga maanta angarka raba inaan soo qaato laakiin dad iga codsadeen waana mahadsantihiin topic aad ugu baahneen waaye topic aniga adiga dadkoo dhan wada anfacayo waaye wixii maaragtay su'aal ah hadii oo quick ah aan ka jawaabi karo okay madawadi wax ka qalday yihiin soo sidaba hatta waxba looma sheegi karo miya hadii wax qaldan yihiin madawi waxa ka wadaa aan filaya haduu qofka uu wax qalad u sameeyo yes waxa jira si qaab loogu sheego qaabkii marka ugu sheegtid qofkaas
markuu wax saxaayo aan ka hadlaya markuu qaladkii saxaayo inuusan u sixin adiga inuu ku raali geliyo inuu u saxo wax asaga uu dareemo inuu ka qalday nafsadiisa waa ifaanta umaleena sababtoo ah waxaan maaragtay waxa u badan opinion wax qof markaa wax ka saxiisa xataa waxa ogaataa adiga saa wax u aragtid inaa ku saxiisid ma ahan qofkaas wax u arko qofkaas waxa laga yaabaa waxaas uu sameynayo in asaga xaqiisa ay qalad ahayn laakiin hadaa isleeda waxaan waa very important qofkan u tahay walaalka ah qofkan waxa rabaa si daacad inaa wax ugu sheego ha ka ahaato biniya ha ka ahaato wax ku dhehaysid walaalo aniga saana wax u arkaa laakiin adiga ma ogisa wax u aragtid qofkii choice aasiisid qofkaasna asaga saas darteed uu isku saxo ama hadduu markii mar dambe uu qaladkii xataa uu saxaayo uusan ku sixin adiga dartaad inuu kugu raali geliyo inuu ku saxo asaga nafsadiisa kaliya inuu qalad ka ilaaliyo does yoga yes Abdi Yusuf yoga meditation it does help yes yoga meditation iyo maaragtay way caawisaa iyo visualization xataa waa ka hadli doonaa waxay u caawisaa qofka xanaaqa tirada badan waxyaalo badan oo qofka ibn aadanka u geystaa xanuuno tiro badan u geystaa wax walba oo subxaanallah maanta adduunka ka jira caalamka waxa u noqonaysaa sensitive qof iska daayay qofka banaanka guriga adduunka dhan waxa u malaysaa in adiga kaas horjeedaan hadduu xanaaqa uu badan yahay laakiin haddii xanaaqaas uu kaa dego qof walba waxaa la tahay heshiis nafsadaada heshiis la tahay hadduu xanaaqaaga uu baday nafsadaada xataa heshiis la ahayn waxay hadduu saas kaaga dhaco adaas ku xanaaqaayo waxa laga yaabaa inaad gacanta xataa meel ku dhufsatid nafsadaada xaq ka sii gashay عبد الفتاح ولا الوحن قف بوفيس لحن وسن مع دوا اوكي بوفيس waxa u fahmay confident inuu ku yiri qofkaas ama qof oo paranoid qofka haduu uu ku xiran yahay adiga haddana fiiri si walaaltinimo waa u waanin kartaa laakiin feelingkiisa inaad taabataa la diidaya qof kasta ma aragta haddana waxaa ogaataa qof walaal ah waa ku soo celinayaa tan qof walaal ah haddii ma aragtay aad dhaawac self esteemkiisa gaarsiisid waxaa ogaataa qofkaas caafimaadkiisa inaad maaragtay jiradiisa qaab weyn ah ka qaadatay waxaan u dhahayaa waa arkay dadka low self esteemku ku dhaco wuxuu kaga imaadaa qof kale ah wax ku dhahay ama qof kale hadal ku dhahay dhaawici marka waxa laga rabaa afkaaga waxa ka soo baxay walaal ah feedback hadaa siinaysid feedback oo ilaahay dartiis qalbigaaga kaga soo gaay oo fiican inaad siisid marka siinaysin you have to be careful oo inaad dhahdo qofkan sidee wax u arki doona qofka hadii aad ilaalisid walaalka amraayad camal waay muraayadaas hadii qalbigooda ay gasho dadaa jiro oo maanta dhan gudaha iska cunaayo oo maanta dhan dhahay okay inaan saxo inaan wixii sameeyo marka be careful walaalo waa mahadsantihiin waa kasii baxaya insha Allah jazakumullah khair qofkii message ii soo diraayo gadaal ha ka soo diro waa waqtigeyga hadda aan bixi jiray adinkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku anfaco khair Allah idin siiyo aada u mahadsantihiin dhageysiga iyo sharafta aad ku dhageysateen wiilkayga hadlayay iyo anigaba waxa idin wada dhaafaya khair iyo sharaf insha Allah waa inuu bari dambe waa inuu bari insha Allah because casharkan ballan baan qaaday inaan dhameyn doono 21 days mid kalena ogaada noloshaada maanta waxa idin kaga tagaya hal wax xasuusta hashaas wax nolosha waa inaad leedahay commitment waxa la dhaho commitmentigaasna waa in wax walbo ah qabanaysid inaad ku adkeysatid sababtoo ah maanta maxaa hadda isoo istaajiyay oo aan markasta 7 usoo galaa waqtiga anoo ciyaal haysto anoo 6 caruur haysto alxamdulillah maxaa u sameeyaa waxay taas ku sheegaysaa mindsetka aad ka hadlayno waay mindsetka wax maskaxdaada aad ku dhajisid oo niyad aad ku qabatid xadiiskan waa tuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat taas waxay ku tusinaysaa wax walba niyadaada aad gashid inaad gaari kartid inaad wax walba yani darbi aan saari karaa dhigi karto waa gaari karaa hadaa aan maskaxdeeda geliyo marka taas waxa ku ogaataa anoo waliba xalay waqti dambe aan seexday normally waqti fiican aan seexan jiray 12 wixii ka dambeeyaan seexday still niyadeyda waxay ku jirtaa ma isoo galayso hurdo 5 markay saacada la gaar maskaxdeeda waa soo kacday mana isfaaninay reasonka waa ogaa adinka bayna soo kacdaan way u soo kacday maskaxdiyaan gashtay niyadiyaan gashtay adinkana fiiriya maanta saa u imaateen waqtiga u ilaalisiin 7 o'clock oo soo fariisateen maxaa dhacay maskaxdiyaa galiseen marka waxa ogaataa 14 kaas bari in noloshaada uu wax iska bedelay
inaada ahayn maalinkii koowaad saa ahayd oo aa mar kastaba niyadaada ee maaragtay u soo jeeda inay wax barato aa inta ku imaatay marka waxaan ku dhihi lahaa nafsadaada well done is dheh commitmentigaas aa samaysana sii wad noloshaada waxyaalaha kale oo aa qabatid iyadana ku tadabbur ku qabo waxaas commitmentigaas aa samaysay waana idin wada jeclahay walaalahayga oo ilaahay dartiisa tiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu